ducaynu horta u baahannahay inuu ilaahay naga soo qaboojiyo hawshaasi maanta taagan ee lascaanood ka taagan hawshaasi biidnillah dowladda Soomaaliland dadaalkeedu ma yarayn waanaynu wada ognahay lascaanood waxa weeyaan dadka ku nool waa Somalilanders waa dadkeeni waxaanu leenahay hadii ilaahay nafta inuu simo ilaahay hay naga soo afjaro dagaalkaasi waxaanu leenahay reer lascaanood ha ku baraarugsanaadaan inay yihiin horta dad reer Somaliland qof walba meel buu ku dhashay dalka Soomaaliya oo dhan marka Soomaaliya oo dhan eegto intay ugu yartahay 2 3 4 qabiil baa meel wada degan ma dhici karto qabiil kaligood meel iska degan ma jirto markaad kaga soo qabatay imka xagan awdal iyo kaga soo qabatay Selen reero waaweyn baa wada degan miyaanay ahayn markaad Djibouti joogto reero waaweyn baa wada degan Somaliland markaad joogto reero waaweyn baa wada degan markaad Puntland tagto reero waaweyn baa wada Soomaali meel ay degan tahayba reer kaliya specific xaafad ka soo toosaya ma jirto maxaasaynu u baahannahay inaynu inagu ku baraarugsanaano midka way dagaalku waxba ma taro waxa la wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho dumarka iyo caruurtuna way ku barakacayeen marka ilaahay naga soo afjaro way qof walba meel baa dantiisa ku jirta Soomaaliland danteedu waxa weeyaan xuduudkeedu way taqaana wax lagu murmaayana ma aha 60kii baynu suunimi walaalaheen waynu isu ducaynaynaa cid kastaaba halkeeda ilaahay ku barakeeyo ayaynu leenahay reeruna waa wada degayn oo kala maarmi maayaan waa abti eedo adeer waa la saasay la isugu wada xidhay habroodan waa kugu dhimay oo ka dhimay inta la ogaado oo reeso la ogaadaan ducana waynu u baahanahay inuu ducaysano wadankana inuu wada ducayno dhamaanteen